sidee dumarka ay ku heli karaan nin wanaagsan muxuu yahay qaabka iyo wadada loo maro in aad xulatid nin wanaagsan sida aan ognahay dadka bini aadamka ah waxay u baahan yihiin in ay lamaana noqdaan oo ay isguursadaan ninka ragga ah inuu naag fiican guursado haweeneydan nin wanaagsan ay guursato taasina waxay ka caawinaysaa dhisidda qoys wanaagsan iyo guri qurux badan inay yeeshaan lamaanaha la doonayo inay guriga ku midoobaan kulan wacan daawadayaal halkan waa channelada Galad Show iyo Leila Cismaan ku soo dhawaada asxaabtii hore noola joogtay waxaan leeyahay waad ku mahadsantihiin la joogiina iyo waqtiga aad nala qaadanaysaan kuwa cusubna waxaan leenahay soo dhawaada meeshiina weeye subscribe like share comment inta waaye waad idinkaga baahanahay hadii aan u gudbo mowduuceena maanta wuxuu yahay sidii hore aad u daawateen qaybtii ugu horeysay wuxuu ahaa xulashada guurka waxa daawateen qaybtii la xiriirtay sida ninka uu ku heli karo haweeney wanaagsan soo wanaagsan sida lagu heli karo hadda qaybtan waxay tahay sidee dumarka ay ku heli karaan nin wanaagsan muxuu yahay qaabka iyo wadada loo maro in aad xulatid nin wanaagsan sida aan ognahay dadka bini aadamka ah waxay u baahan yihiin in ay lamaana noqdaan oo ay isguursadaan ninka ragga ah inuu naag fiican guursado haweeneydan nin wanaagsan ay guursato taasina waxay ka caawinaysaa dhisidda qoys wanaagsan iyo guri qurux badan inay yeeshaan lamaanaha la doonayo inay guriga ku midoobaan marka ugu horeyso aasaaska guurka wuxuu yahay mid fudud ha yeeshee gadaal ayuu ka noqonaya mid balaaran maadaama qoys laga rabo wanaagsan in meesha ay ka soo baxaan bulsho ay noqdaan qaran ay noqdaan marka ugu horeysa marka oo gabadha ay doonayso in ay guursato ay guur u soo diyaar garowdo waa inay ka eegtaa dhinacyo badan isla markaasina ay wax badan la tashiyo sameeysaa qofka nolosha ay la wadaagayso noocu uu yahay hadii aad marka hore ka fikirtid aabaha caruurtaada waxaad helaysaa caruur fiican akhlaaqiyan iyo diiniyanba marka ugu horeysa marka waxa la doonayaa gabadha in ay ka fikirto nooca ninka ay doonayso kama hadlayna madab iyo waxyaabo la mid ah yeeshay waxaan ka hadlaynaa dhinaca guud ee xulashada guurkaaga marka waxa looga baahan yahay gabadha guurdoonka ah in ay ka fiiriso dhinacyo kala duwan oo ay ka mid tahay diintiisa akhlaaqdiisa ehelku uu ka soo jeedo nin mas'uuliyad qaadi kara inuu yahay qof shaqeysto inuu yahay qof maskaxdiisa ay ku filan tahay isla markaasina diyaar u ah isaga laftirkiisa inuu nolol sameesto marka intaas oo dhan aad ka fiiriso runtii waxaad awood u leedahay in aad boqolkiiba 90 aad heli karto aabo wanaagsan marka aabo wanaagsan aan leeyahay waa in ilmahaaga aabahood aad ka fikirtaa nooc uu noqon doono maxaa yeelay hadii la isguursado awlaad ay timaado marka dhibaato ay imaanaysa hadii aabuhu uusan ahayn mid ka wada fikiri karo oo mas'uuliyadooda qaadi karo adiga iyo awlaadaada sidoo kalena uu yahay mid si wanaagsan u xiriiriyo familkaaga iyo familkiisa ehelkii asxaabtaba waa inuu noqdaa nin boqolkiiba boqol lagu tashan karo nooc uu yahay marka laga hadlayo dhanka mas'uuliyadda waana ognahay in mas'uuliyad weyn ay saaran tahay ninka ragga ah ee doonayo in uu guursado hadii intaasi oo dhan aad ka heshid ama aad la tashiyada aad sameeyso lagu sheego inuu yahay qof wanaagsan sidoo kale waa qiimeyn kartaa xilliga wada sheekaysigu uu socdo ninka aad guursanaysid inuu yahay nin wanaagsan in kala sababtoo ah dadku way iswada yaqaanaan dhinacyo badan waa laga eegaa maxaa yeelay hadii ilmahaaga aabo wanaagsan aad u heshid waxaa noqonaysaa family qurux badan oo ku dayasho mudan waan ognahay qoysas badan inay ku burbureen isfaham darrada kaliya ma aha waxa u sabab oo keenay waxay tahay in marka hore nooca aad guursanaysa aad ka fikirin marka si aysan u dhicin in banaanka aad ku soo dhacdaan adiga caruurtaada ka fikir marka hore nooca ninka aad guursanaysa ha ahaado mid dhinac kasta ka dhisan aqoonta diinta waxbarashada dhaqanka soo jiidashada iyo wax walba quruxda laftirkeeda kama marneen qurux badan waa loo baahan yahay iyo lacagtaba waa marka in aad si wanaagsan u eegtaa hadii aad hesho dhammaan tilmaamaha aan ku sheegay qof leh
runtii waxaad gaartay guusha nolosha oo waxaad hantid aabbo wanaagsan oo caruurtaada iyo adigaba wax badan idinka fikiro aabbaha inta badan caruurtiisa ka fikiro gurigiisa ka fikiro familka xiriiriyo maxaa la dhahayo wax walba u baahan tahay aad ka heli karto wuxuu noqonaa midka aad mar hore ku soo daashay daydayntiisa ma ahan qof maanta aragtay ama qof kale oo iskiin baray inaad isla markiiba adigoo dana gaara eeganaya ama dhaqaale ama wax la mid ah in markiiba aad guursato oo ku degdegto taas waxay keenaysaa lacagtaas way dhamaanaysaa sidoo kale qofkaas sida isku fahmi lahaydeen way adkaanaysaa waxa ognahay gabdho badan oo yaryar oo maxaa la dhahaayay aan u qalmin nimanka ay guursanaan laga yaabo inay guursadaan nin aabahoodo kala ah kaasina waxay keenaysaa isfaham daro sababtoo ah age-kaba isku mid ma ahan dhaqanka isfahamkana sidoo kale way ku kala duunaanayaan inta badan waxa burburka qoysku keen waxa kamid ah in dadan isku qalmin ay isguursadaan mararka qaar way dhici kartaa qof weyn inuu isguursado sababtoo mahmaahda Soomaalidu waxay tahay ninku dhali kara ku dhaqi karo marka dhaqitaanka laftirkiisa meesha way ku jiraan laakiin muhiimaddu waxay tahay in aan lagu keenin oo maxaa la dhahayo dad ay ku keenin ama si kale lagu barin oo adoo dhaqaale eeganayso waxa lagu sameeyay inta lagu dhaho aad ku degdegtid laakiin nooc doonaha ahaadee haddii waqti aad ku bixisid sida aad isku fahmi lahaydeen qofka nolosha aad la wadaagaysid runtii waxaad noqonaysaa qof guuleystay dhinac kastana ka dhisnaan doono marka meesha ugu wanaagsan ee wax laga bilaabano waxay tahay marka ugu horeysa bilowga inaad ka fikirtid haddii aad bilowga ka fikirtid runtii waa guuleysanaysaa si wanaagsan waad u helaysaa mustaqbal wanaagsan iyo nolol qurux badan oo adiga iyo caruurtaada idin horseedo qoysas badan waa ognahay aragnaa oo ku daysho mudan sida ay u dhaqmayaan wanaag ka dhaxeeyo caruurtooda sida ugu fiican yihiin caruuraha kale waa dad markii hore ka soo fikiray nooca qofka ay guursanayaan marka qof walba oo guurdoon ah gaar ahaan dumarka waxaan kula talinaa in ay ka feejignaadaan qof labisan in ay raacaan ama dhaqaale haysta ama gaari cad wato laakiin ay marka hore iska eegaan dhinac kasta oo qofkaasi uu ka dhisan yahay kaliya muuqaalka iyo hadal macaan oo laba bari la isdhaho waa shidantahay oo qurux badan tahay wax walba ku sameeyna ina uga daba carartid ma ahan waa in aad fiirsataa dhaqaale uu imaan kara qofka isfahantaan oo inta tilmaamaha wanaagsan leh waa taleeli kartaa sababtoo lacag waxa ma waa la heli karaa waxa ka muhiimsan dhaqanka iyo wanaaga qofkaasi uu wato guushana waxay timaadaa marka waqti la galiyo marka waxaan ku leeyahay mar walba waqti gali nooca aad doonaysid wax walbana wanaaga ay ku fiican yihiin asxaabay waad mahadsantihiin daawashadiina muuqaalkeena wuxuu la xiriiray ama fiidiyogeena sidii lagu heli lahaa nin wanaagsan ama soo wanaagsan iyo wadooyinka loo mari lahaa ka faa'iideysi haboon ayaan leenahay wixii aragti oo dhankiina oo la xiriira arrimaha bulshada aan doonayno in had iyo jeer aan soo bandhigno waana la soo socodsiineysaan maxaa yeelay muuqaaladan qaarkood dad ayaa soo codsada waan u soo gudbinay sidaas si lamid idinkana waa idin soo gudbinaynaa waad ku mahadsantihiin daawashadiina subscribe like share comment intaba idinka doonaynaa bye bye